Finland kusoo dhawaad walaalihiin oo idin jeclaystay caawa inay idinla casheeyaan idinla waraystaan ama aad isdhaafsataan xogta jirta hadda kulli dalka inta badan waxa ka jira waa ka dareysanahay balse isku duubniya horumar lagu gaaraa waxaan rajaynayaa hadda lixdiina iyo inta kale iga maqan in aad baryahan aragteen ama leedin bari dawlad wanaagga waxa ay tahay taasoo ay ugu horeyso nabad meeliisa ka jira nolol badan kama jirto kulli waa aniga intaan aaminsanahay intaan buug akhrinay wax walbo waxa ugu horeyso nabaddu waa furaha nolosha buug kastoo la furo haddaba fiiriya macnaha social science ana arrimaha bulshada bartay waxaan ka wadaa buug kastoo la furo waxa ugu horeyso nolosha la sheego furaheedu waa nabad soo dhawaada waa mahadsantihiin warka idinku dhamayn maayo waa ogaa bari waa maalin shaqo aniga laftarkeyga shaqaan ka soo baxay isbitaal weyn halkaasaan ka shaqeeyaa habeenkii iyo maalintii aan ku dhuntaa naagahan ka dhaliyaa waa soo noqdaa marka meelahaasaa laga helaa that's why aan dhalinyarada badan aanan isu arkin waa ka xumahay laakiin dadaal aan ku jira insha Allah wada khayriya oo haysan baqara ku haysan haddii hagaagto shacabka Soomaaliyeed oo dhan saas u jeclaanaya mustaqbalka inuu hagaagaya aakhira Ilaahay aad ugu dhawaanaysaan aad iyo aad baan mahadsantihiin soo dhawaada mar kaleeto waa ku faraxsanahay loo kulankiina aragtidiina waxaa kaloo insha Allah tacaala ku faraxsanahay oo mahad celinayna dadkan soo xaadiray oo u yimid qaarkood jacaylka iyo wanaagga ay u qabaan dawladnimada Soomaaliya inay hergasho dad baa maalin kasta wadankan yimaada Soomaaliya ka yimaada aan wax tayta lahayn lama soo dhaweeyo saan oo kale looguma yimaado laakiin waxa la idinku yimid adinka oo halkaana keenay waxay tahay wanaagga iyo dawladnimadii iyo dalkeena inuu dib u hagaago waxaan u qabno miyaha jaaliyada agaasimaha la taliyaasha dhamaan soo qaybgalayaasha rag iyo dumar qaybaha kala duwan oo afsaanka ugu horeeyo dhamaantii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh aad baan ugu faraxsanahay runtii inaad casuuntaan xafladan aan kasoo qayb galno aad baan kaga mahad celinaa runtii saan oo sharafteen dabcan xilligan in soo lugoyn shaqadii ka soo wadno ma mudnaynina laakiin adinka noo gartay anaguna waa qaadanaynaa aad u mahadsantiin mar kale dabcan anagu maalmaan joognay waan laabanayna hadduu ilaahay idmo maalmaha soo socda waxaa halkaa u nimidna waxay ahayd bal dal Soomaaliya lahaa joogtaane Yurub see looga noolaa in la soo arko inaan isku qiimayno runtii heerka kala joogno waan dareemi karnaa runtii farqi noo dhexeeya intuu leeyahay laakiin hadda ugu yaraan waxaa haysanaa fikrad runtii wax lagu asaasi karo wixii runtii meesha noo yaalay wax xun aan ka bedeli karno intay rabaan la ekaadaan marka runtii raggan dhalinyarada arkaysaan hay'adaha dawladda ay ka shaqeeyaan dabcan haddii dib u laabano dalku markuu burburay intii wax taqaanay xilligaas soo taqaanay wax soo carareen dalka ka soo tageen waxaa soo haray odayaal 80 iyo 70 jir ah oo ogeydeen 20 sano ayagii asmari waayo de way haysteen 90 ilaa 2010 laga soo gaaray 2010 la marayo runtii oo raggan dhalinyarada qaarkood xilligaas dhasheen dabcan waxaa la go'aansaday inaan loo jiifin dalka oo runtii dalka dhalinyarada xafiisyada tagaan runtii xilligaas soo bilaabatay 90% hadda runtii xafiisyada dawladdu wax ka shaqeeyaan dhalinyaro waayo waxa xusidna dhalinyaradaas runtii 99% mushaar ma qaataan xaalad nololeed ku nool yihiin laakiin waxay kala go'aan waxay laba mid macnaa inay saadkiisa jiraan iyo runtii oolba shaqo la'aan jirtay in shaqo la'aanta xafiisyada dawladdu wax un looga bedelo runtii saasa lagu joogaa oo runtii lagu shaqeynayaa marka dadka dawladda ka shaqeeya laftooda dhibanayaal waaye waxay dhibanaan u yihiin runtii maanta galmudug ana cabdi kaari hadduu ka tago runtii wuxuu uga tegayaa hay'ado dawladda oo dhisan xafiis lagu shaqeeyo oo runtii wasaarad kasta ay leedahay shaqaale runtii fiican oo tayeysan oo runtii shaqada dawladda sii wadi kara dawlad muuqata oo maanta leeyahay galmudug xoogan ciidan leh cadowga arkiis ka difaacayta runtii meesha ka jirta waxa intaas sii dheer dib u heshiisiinta oo runtii wax badan laga qabtay la socotay runtii galmudug meelaha ugu daran oo waxay ahayd dagaalada iyo dhibaatadu ka jirto waxa uu malaa inuu jirin qofkii 2 bilood soo dhaafay wax la dilay iyo maqlay
shabaab la dilo waa la maqlay la jiidaya laakiin laba beel isku duushay iyo laba beel isdishay runtii inaan la maqlin aan rajeynayaa dadku waxay aaminsan yihiin hadda runtii nabad dhammaan beelihii galmudug hadda dhibaato ka dhex jirta lama arko meelo ugu darnaa runtii dhibaatooyin ka jiri jireen dibashisiinaan u qabanay maanta waxaa ka jirta runtii nabad lasii ambaqaadi karo oo runtii meesha ay joogto laga sii wadi karo maamul goboleedadan kale deriskana la siday ku dhismeen waa ka warhaynaa waa la soconaa waxaa lagu dhisay hadal ahayntii dekedii hobyo maantana waa la dhiso waxay ka mid tahay degaha ugu waaweyn marka haddaad fiirisiin aqooni naguma yara lacagay naguma yara laakiin waxay nagu aamino marka aamin yimaado wax qabsi iman karaa martida noo ah maanta intaan kusoo dhaweynayno anoo ku hadlayo magacayga iyo magaca jaaliyadda waxay kugu soo dhaweynaynaa waddanka Finland soo dhawaada waxaana jecelnahay inaad mataqaanaa nala sii joogtiin inkastoo aan ognahay inaad baxaysiin laakiin waxaan rajeynayaa in mataqaanaa noo soo laaban doontiin haddii rabbiidno hore waxaan u arki jirnay wafti yimaado dhalinyaraha hadday yihiinba inay kala dhuuntaan laakiin waxaan dareemaynaa yididiila ah in waddanka uu dhismi rabo dhalinyarada meesha joogteena ay ku qanacayaan mataqaanaa waddankii inay joogaan oo ay wax ka qabtaan marka waa wax lagu farxi karo oo wax positive haddaad fiirisid marka labaad jaaliyadda galmudug ee halkan fadhida aad baad u mahadsantihiin sida sharafta leh aad uga soo qayb gasheen kulanka soo dhaweynta ah ee degdega ah weliba mataqaanaa maalinta ay tahay maalin shaqo waan ogsoonahay in qaarkiina leedihiin marka dulqaadkiina iyo mataqaanaa ixtiraamkiina aad baan iga qadarinaynaa walaashay sacdi su-aashiina weydiisay waa su-aal aada u muhiima jaaliyadda galmudug markaa dhisaynay sanadkii horaan dhisnay hadda maanta intaan joognaa waxaan inii sheegi karaa oo run ahaantii aan ku faani karnaa maanta jaaliyadda galmudug waqtiga maanta la joogo inay tahay jaaliyadda ugu dadka badan ugu shacbiyadda badan ay markii galmudug la yidhahda aysan dad usoo bixin maanta oo waxaan ku faani karno galmudug hadday is maqlaan waddanka Finland waxaan rajeynaya dadka galmudug inay yihiin dadka ugu badan ismaqalkii uu dib usoo laabanayo shaksiga hoggaanka qabanayana waqti dheer ma sii joogay waqti yar buu joogaya marka waxaasoo dhan waa kasoo gudubnay maanta waxaan sugaynaa waqti waxqabadkii maamul goboleedadan kale deriskana la siday ku dhismeen waa ka warhaynaa ka sokow hay-adaha ay usoo diyaariyeen waxay gaareen isku filnaansho ah dadkooda bannaanka jooga inay is aaminaan oo lacagtooda iyo jeebkooda ay wax ku bilowdaan hay-ad kasta ama mashruuc kasta oo xagga laga oofinayo waxaa la fiirinayaa dadku haysto bulshadiisa say iskugu xiran tahay wixii loo diray inay keeni karaan taasna waxay qaadanaysaa waqti u dhisay waan la soconnaa waxaa lagu dhisay hadal ahayntii dekedii hobyo maantana waa la dhiso waxay ka mid tahay degaha ugu waaweyn ayay ka mid tahay marka haddaad fiirisiin aqooni naguma yara lacagay naguma yara laakiin waxay nagu yar is-aamin la-aan marka waxaa loo baahan yahay ninba ninka kale inuu aamino marka aamin yimaado wax qabsi iman karaa marka arrinkaas waxba yaan kusii dheeraanin waxaan leeyahay martidiina soo dhawaada